inaan bal tambiihiyo ama baraarujiyo ninka ganacsada ee muslimka ah maadaama magaaladiinu ay magaalo ganacsi tahay dadkuna camalka ugu badan ama shaqada ugu badan uu hayaa ay ganacsi tahay ee waxyaabaa looga baahan yahay wax ka mid ah ama taxadiyaadka ee hortaagan ugu horeyn waxaynu ognahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ganacsiga inuu baneeyey waaxala allahu اlbayca waxarama الriba ilaahay subxaanaه wa tacaala binasi kitaabihi buu inoogu tilmaamayaa baycu ama waxgadista iyo wax soo gadashadu ganacsigu inuu xalaal yahay aayaad badan oo qur-aan wana laga dheegan karaa mas'aladaasi oo alle subxaanaه wa tacaala uu kaga waramayo bale layna yidhi cibaadadiina markaad dhammaysataan faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu اllaha kaiira lacalakum tuflixuun aayaadka qur-aan ee ku soo arooray ama axaadiista ku soo aroortay ganacsiga iyo waxtarkiisa iyo ajarkiisa iyo fawaa'idiisu waa iska tiro badan yihin waxaa kugu filan imaamu طabri raxmat ullaahi calayhi markuu tafsiirayo aayaadkan ugu dambeeya ee suuraة اlmuzammil ilahi wuxuu leey ina rabaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay اleyli wanisfa waثuluثahu waطaaئfaة min aladiina macaka wallahu yuqadiru اleyla wالnahaar calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu ma tayasara min alqur'an calima an sayakunu minkum marضى waakharuuna yadribuuna fi اlardi yabtaguuna min fadli اllah waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah muslimiinta waajibka salaadleylkaalaga waajibnimadeedii waxyaabaha ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala inaan lagu fudaydiyey waxa ka mid ah waxaa idinka mida baa la yidhi dad xanuunsan waxaa kaloo idinka mida baa la yidhi dad ganacsato ah oo ilaahay fadligiisa raadcaynaya iyo waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah si awgeed bu imaamu طabri imaam alqurطbi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay ilaahay aayadda tan wuxuu ku simay darajaة اlmujaahidiin iyo almuktasibiin almaali اlxalaal kuwa shaqaysanaya si ay caruurtooda iyo naftooda iyo dadkooda u quudiyaan iyo kuwa mardaaga intaas baa meel qura lagu wada tilmaamay buu tilmaamaya axaadiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu tirmidi iyo ibnu maaja warinayo inkastoo sanadkiisa culamada qaar ay ka hadhadlaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayhina axaadiistu isbaraanbariye ee ka mid yahay oo kutubuhu lqadiimana wuu tadciifinayaa kutubtiisa dambena wuu tasxiixinayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa altaajir alamiin alsaduuq almuslim maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai yowma alqiyaama qofka taajirka ah ganacsadaha ammaanada le amiinka ah ammaanadu waa sifatu اlambiyaa inii lakum naasixun amiin ay wada tilmaamayaan waa dadka ugu mudan ummadda muslimka ah sifaadka lagu tilmaamo nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ganacsadaha amiinka ah ee ammaanada leh ee runsheega ah saduuqa ah ee muslimka ah buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kaasi qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa safka muqadamka ee horeeya dadka mu'miniinta hogaamiya oo waa nebiyada iyo sidiiqiinta riwaayadda qaarkoodna shuhadaa quray ku koobsanaysaa laakiin isku soo dar shahiidka iyo sidiiqa iyo nebigu intuba waxa weeyaan waa hormuudka ummadda muslimka ah marka qiyaamaha waxa la raaciyey inuu dadka hormuudkaa soo raaciyo macnaheedu waxa weeyaan hadduu ganacsigu miduu ilaahay kaga cabsaday yahay oo uu ku cibaadaysanayay uu yahay inuu ka mid yahay cibaadaadka meesha hore aakhiro lagu badbaado ee dadka hore ka mid ah ma badinayo markaa nusuusta ku soo aroortay ajarkeeda iyo ibaaxadeeda iyo wixii la halmaala laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa yar idinka tilmaamo casrigan aynu nool lahay iyo ganacsadaha dhibaatooyinka haysata casrigan aynu nool lahay waxay ku tilmaamaan waa casru technology casru maxay idhahdaa information waa information society bay idhahdaan
waa bulshada warka ama macluumaadka macluumaadka badanaa la helay ee casriga jira iyo xidhiidhka tirada badan leh furas weeyey ay tahay qofka muslimka inuu ka faa'iideysado oo waxaa la yidhahdaa casriga kan dee adigoo gurigaaga fadhiya ayaad macluumaadka ugu badan heli kartaa adoon gurigaaga dhanna uga bixin ayaad heli kartaa dunida alaabta taallo oo dhami waxay tahay qiimaha ay joogto meelaha ay taallo sida loo kala gato waxaad macluumaad u baahantao dhan adigoo gurigaaga fadhiyaad heli kartaa in soomaaliduna dee waxyaabahay ku ammaanantahay waxaa ka mid ah waxay dhahdaan waa open society waa bulsho furan bulshada furane waa bulsho warkeedu si fudud isu gaadho maalan east africa iyo dhulkaasi gaalo ama niman reer yuruba iyo hindi ayaa baacmushtar ka ahaan jiray qof waliba inta uu haysto ama itemka uu yaqaano wuu la aamusay dabeetana keligii ayaa ka baacmushtarayn jiray soomaalaa timi soomaalida waa open society waa dad furan way isu sheegtay daba iyo daclo suuqa cid walba way ka saareen waxay kaga saareen quri maha activity kale waa informationka waa warka ay siinayeen warkaasi ay kala helayeen ay siinayeen ayaa ah wax weyn marka la joogo caalamka maanta la joogo marka maanta caalamkaynu joogno itisaalaadku way fudud yihiin ama internet gal ama telefoon dir ama kan dir ama waxaan sameeya inaad hesho macluumadaad u baahantahay oo dhan waad heli kartaa waxaa kaloo fudud qaabkaad lacagta u gudbin karto oo waagii hore dee awrkaasaa lacagta la saari jiray oo lasii safri jiray oo bila la sii socon jiray haddana waa swift waa mobilekaad sidato aad dhowr badhan taabato ayaa lacagtu dunida dabadeeda ku gaadhaysaa adna kugu soo gaadhaysaa idan itisaalaadkii oo dhami wuu fududaado taxwiilaadkii lacagta oo dhami wuu fududaado muwaasalaadkiina waa fududaadeen wixii wax la saari jiray dareen dayuurad markab wax walba waxbaa lasoo saaray iyana wuu fududyihi xaggaa marka laga eego tijaaradu casrigan way ka fududay cusuurtii hore oo waa furas laakiin dhan kale marka laga eego qofka muslimkaa cidhiidhi badan bay ku tahay waayo nidaamka caalamiga ee dhaqaale wuxuu ku salaysan yahay nidaam aan islaami ahayn waxaa hormuud ka ah dad gaaleed waxaanay bays uga dhigeen oo uu ku salaysan yahay nidaam ribowiya sida daraaddeed waa nidaam dulmi iyo khiyaamo iyo guud ahaan markaynu duuduubno xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegeynin marka taajirka ganacsadaha muslimkii wuxuu u baahan yahay kow inuu kala garto acyaanta maxaa xalaala maxaase xaaraana shareecada markaynu eegno xaaraantu waa wax yar 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 waxa kaloo dhami waa xalaal maalan waxaa la cunoo dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay bes sunnaduna wax yaroo kooban bay ku dartay marka sidaa loo eego xaaraantu waa farakuturis waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wax loo odhan karo xalaashuna waa waxa soo hadha laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yareyd ee farakutiriska ahayd in wax walba la saaro sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo tusaalayaal baan idin sii kooban maanta industry-ga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay imikana asia ku soo biirtay oo ama malaaxido ah siday u badan yihiin chinesku ilaahba rumaysnayn ama hinduus iyo beliya baas kale ah iyo buudhiis idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeyaan oo kasii fog ahlu kitaabka warshaddu markay shayga samaynayso laba shay baa asal oo ay ka fekertaa
shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability inuu productionku aanu kala go-aynine aada heli karto wafradiisa inuu mutawafir yahay. dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah matalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraanaa ku jira ama alcohol xaaraanaa ku jira ama neef aan la qalin wixii baa ku jira ama doofaar wixii baa ku jira, waayo iyagaa more available, iyagaa la helaya. waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood haddan ka waramo inaad ka yaqyaqsootaan, waayo dadka waxaan ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. tusaalaan ku siin cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteinska lagu daro qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka, maydkan caruurtan la daadiyey. qaarkood baranbaro la beeray, beed baranbara laga soo guraa. baranbarada soo mataqaanayn proteins baa laga soo guraa. qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa, proteinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan. qaarkood yani ninkan waxba xalaalka ma aha, waxba xaaraanka ma aha. qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey. walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibina waa nacnac. hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday 990kii markaasaan furay, waxaa ihi war barorta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira. yani xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sareeya wax waliba waa ku jira. taa maxaan uga dan leeyahay taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yahay. waxaan uu iibinayaa qofka muslimka ahi uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay, ama sharaab ha noqoto ama cunno ha noqoto ama daawo ha noqoto ama waxay doonaysa ha ahaato, waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi. xaaraantu waa yartaynu dhe laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen. waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxa hortaagan taxaddi alxalaali walxaraam ugu horeyn. tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta, see baad uga dhigi lahayd wax xalaala. bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku oo xoolaa waynu jecelnay, wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama. bini aadamku xoolaha aada buu jecel yahay inuu helo, laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan. waa waxyaabaha laynagu beeray si laynoo itixaamo. nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto labtaqa thalis buu dalbaya, mid saddexaad buu raadinaya. hunguriga bini aadamka ciidun baa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraane, kaad qaadataa baana lagugu abaal marinaya. dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaamay kale waxaa ka mid a uxdirat ilanfusu shux. waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo, wa kaana alinsaanu qatuura. nebigu wuxuu tilmaamaya yahra bnu aadam, bini aadamku waa gaboobaa laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa. xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo. maxaa ku saaran marka? dunida waxa yaallaa baynu ihi waa nooca ah. technologigina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabayn karo, wax walba in la qaabayn karo. wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan. matalan cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya. waxaa dhadhanka u sameeya xaggu ka yima isweydiin leh.
waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo waxa isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa. waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin. waxaa lagu daraa konton shay. waxaa lagu daraa qaar midab loogu yeelo. waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya. cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxaan inta lasoo qaadaa lagu walaaqay. waxaad moodaysaa inuu beriis khaliyayay ama inuu fuul khaliya yahay ama inuu cambe yahay baad ugu haysataa, laakiin waxa ku walaaqane ku guda jira way tiro badan yihiin. sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheennan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn, waa laga yaabaa meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deynaya in la isweydiiyo. waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta waxoo dhami saarantay. qofkan taajirka ee muslimkaabaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid. yaa ayuha arusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuluu amwaalakum baynakum bilbaatil. xoolahaas qaabkay kugu soo gelayaan inaad xalaalnimadooda ilaaliso. waana kuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ugu badan ee qofka diintiisa fasahaadiya inay ka mid tahay maalka iyo mansabku. nebigu yihi laba yeey ama laba waraabe oo adhi lagu sii daayey ugama fasaad badno qofka siday diintiisa u fasaadiyaan maxay xirsu lmari cala almaali waasharafi lidiini. qofku xoolaha jacaylkoodiiyo si u ururinayo iyo sharaf iyo maamuus iyo magac iyo mansab iyo dowladnimo siduu u raadinayo. aakhirana ilahi wuxuu leeyay qaar inta lasoo taagay inay ku halaan hali doonaan maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya. xoolihii waxba igama tarin iyo sulطaankii iyo maamulkii iyo wixii aan haystay oo dhan. casriga dambana wuxuu nebigu ku tilmaamay inay ummadda zaman ku iman doonto laa yubaali اlmarءu maa akhada minhu amin xalaalin am min alxaraam. wakti aanay dadku uba aaba yeeli doonin waxaan soo gelaya ma xalaal baa mise waa xaaraan. weliba soomaalidu laba dhibba way qabtaa markay dhanka maalka joogto. dhaqan hore qadiima way qabaan oo waracu ku yaraa. soomaalidu geelay qaadi jirtay soo maha. geel nin muslima foofsaday oo halkaa uu u dareersaday saaka ayaa inta la qaadaaba weliba ammaan loo haystay. idan tii baadiyuhu dhaqankeedii hore kaasoo ah. tii magaaladuna waxay noqotay in la isweydiiyo wuxuu lacag matay waxaa ku soo gelayaa lacagun maye inaan loo eegin ma xalaal bay kaa soo gelaysaa mise xaaraan bay kaa soo gelaysaa. ta dadka ka dhaxaysa iyadu kumaba sii jirto dowladaha iyo meelahaasi. lacalla dadka wax isku darsadaa in badan inay isboobaan. lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag. sida awgeed waxaynu leenahay laba shayba waad u baahantihiin. kow marka hore waxaana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxay yihiin inaad garataan. marka labaadna dee inaad sharciga u egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci buu jira ilaahay inoo soo dejiyey. sharciga alla inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamaya waxna xaaraan buu ku tilmaamaya. waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro. nebigu wuxuu u tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadow kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday. ka ku dhiirada waxaa madmadowgu ku jirana inuu ismiga ku dhacayo. sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamaya ama challenge-ka ama caqabada labaad ee dadka soomaaliyeed haysata ama muslimkaba intooda badan haysata
waa jahliga diinta jaahilka laga yihi. salaada inkastaba ha leekaatee waxbaynu ka baranaa. ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaana. cumuuman salaada waxay ku asaxday arkaanteeda waa naqaana. laakiin haddaynu isweydiino yaa weli beec u fadhiistay oo bartay maca طulaab alcilmiga ku dar. xataa kutubta la dhigo inta badan طulaab alcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadh ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaataaba la iskaga tagaa. walidalik baan arkayay nin culamadii soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbeyc buu ka bilaabi jiray. wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegeysaa kane kamaaliday ka bilaabayaa buu odhan jiray. sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beyca ku asaxaa, shareecadu maxay ka qabtaa, sidee wax loo iibiyaa, ilaah iyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka. bale waxaad moodaa inaynu u dhadhownahay qoladii nebi shucayb loo soo diray. maxay yidhaahdeen? ma waxaad rabtaa an nafcala fii amwaalina maa nashaa bay ku doodayeen. maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen. dhaqaale iyo diin maxaa kala galay? tijaare iyo diin maxaa kala galay? laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jiraa markaa waxay tahay xadiidkii طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim ee ibnu maaja warinayey sanadkiisa inkastoo culamada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qolada si daciifisay, haddana albani iyo suyuud iyo rag kale waa tasiixiyeen. laakiin macnaha xadiidka culamadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah. haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barataa dee waajibuu kugu yahay. gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay. haddaad tijaareynaysana waajib bay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka banaan maxaanse ka banaanayn. haddaad salaad tukanaysana waajib bay kugu tahay salaada inaad barato. idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa. sidaa awgeed waxaynu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee aakhira waa lagu qabsanaya adigoo awoodi karaya inaad barato. haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allah waa iska hagaagaysa de anaa lacagtu maan dhiibaya isna alaabtu maan ka qaadanayaaye maxaa kale layga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabaqaya. si awgeed waxaynu leenahay taajirka muslimka ah korkiisa waxaa saaran axkaamta beyca iyo shiraaga ku soo aroortay iyo baabilbuyuuc wixii ku soo arooray inuu barto si uu uga baxsado ribe iyo maysar iyo wixii shareecadu mamnuucday oo dhan si uu uga baxsado. si awgeed ba imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyhi majmuuciisa wuxuu ku tilmaamaya beeca iyo nikaaxa iyo wixii la halmaala ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa nuquul imaam alxarameyn iyo ghazali iyo qolada soo leh waxaa mutacayina qofku marka uu rabo intuu waxaa qabto inuu barto shuruudooda iyo waxay ku asaxisiyo waxaasi. markaasuu isagu wuxuu leeyahy war tacayunkaa horeba ka kaale waxa xaaraama inaad bilowdaba. waxa xaaraana aliqdaam calayhi ilaa bacda macrifati sharطi. marka la garto un baad bilaabi kartaa buu tilmaamaya. aimadii muslimiintii horena cumar bin alkhadaab baa wuxuu odhan jiray war ninkaan axkaamtaasi garanayno laa yabci fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin. suuqa iyaga iyo wax ku iibinin nin diinta gartay mooyaane, nin diinta fahmay mooyaane. taa macnaheedu waxa weeyaan dhanka kale haddaan idinka tuso wixii a isleediin qaanuuniyan waa lagu dhacayaa legal termska waa u egtaan. intaa looyar u tagtaan baa contracga u geysaan oo tidhaahdaan bal hadda contracga kan eeg sharcigaas u waafaqaya iyo waxaa wixii ku saabsan cashuurta dowladda iyo waxaasi waa soo barataan.
waxa la idinkaga yeelanayo si ama uga gorgortantaan ama uga baxsataan ama u bixisaan si dab kastaba ha noqotee waad isku daydaa inaad wax ka soo ogaa wax allaaliya waxa idinku xidhan haddaad wax iibsanayso haddaad imika guri iibsanaysa ama meel iibsanaysa inta badan iskama qaadatay waxaad tidhaha nootayadayna gee nootayadu muxuu qabanayaa qaanuunkuu kuu eegaya wuxuu waafajinayaa shuruucda meesha taalla oo maxaa diiday inaad diinta u eegto marka inta kaleba waad u eegi garanaysaaye inta kaleba waad u eegi garanaysaa waanad raadinaysaa aqoonteeda maxaa diiday markaa inaad u eegto waar ma ku bannaantay mise kuma bannaana waxay dhahaan tujaartii hore muslimiinta ahi waxay lahaan jireen niman fuqaha ah oo la taliyo ah qaarkoodna waxay lahaan jireenba fuqaha ay ku daraan safarkooda oo safarkaasi intuu maqan yahay wax soo gadanayo waxaasoo dhan ka eega beeca wixii xalaal u dhacaya waxa xaaraan u dhacaya tusaale kale aan idin siiyo markaa gabadh guursanaysaan waxaad tidhahdaan wadaad inoo doona gabadhaad guursataan miya jirta iyadaan wadaad joogin hadda wadaadku shaqaba kuma leh gabadha guurku wuxuu hasaxaa maxay dee weligeedii iyo ninkii bixinaya iyo markhaatiyadii iyo intaan laysla helo ayuu ku asaxaa wadaadku shaqo kuma leh haddaa maxaa loogu yeedhayaa waxaa loogu yeedhayay war bal inaga hubi waxaanaanu wadnaa inuu sharciga waafaqsanya intaasuu wadaadku u fadhiyay meesha siiqadan ay u dhacayso ku guuriyey dee ma siiqo saxa ma tahay markhaatiyadani markhaati galeen ma yihiin ninkani weligii bal ha sheekh kitaabka u ego hubi intaanaanu wadnaa oo maxaa diiday markaad wax iibsanaysa inaad tidhahdo bal sheekh hadda kitaabka u ego intaanaanu wadnaa ila waa isku mid kitaabka nikaaxa iyo kitaabka beeca waxba uma dhexeeyaan waa isku mid kanba waxaad ogolaatay in sheekh loo tago la eego wuxuu saxmayay mise ma aha kanina waa la mid markaa saa awgeed waxaan leeyahay marka hore waxaynu iibinayno acyaantaynu iibinayno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana wadaadkuba laftiisu wax badan kama oga cidda wax ka og weydiiya oo baadi doona oo waxna gadaysaan iska hubiya waxaanaad gadaysaan iska hubiya marka labaadna waxaan leenahay sida wax loo iibiyo wax loo gado wuxuu sharcigu ka qabo waa la baran karaa 2-3 maalmood baa kugu filan oo kors fiican lagu siiyo oo aad baysiga fahamtid usuusha aad garatid wixii masale markaa madmadow galana aad ula tagtid sheekhaaga la taliyaa ku ah ee markaa kuwa muftiga ah aad wixii masale madmadow galana weydiiso laakiin inta bayska ah asalka ah dee inaad cidna u daba fadhiisan aad ogaato oo aad garatid subax walba dukaankaad furaysaa iyo dukaanku wuxuu beeciisu ka asaxaya waxaanu ku asaxaynin qadiyadda labaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tijaaradu iyo xoolo dhaqashadu inaanay cibaadada kale inaga mashquulin inaad noloshoo dhan ka dhigin lacag see loo helaa oo marka waagu bariyo intaad ka lahdo habeenkii marka la seexanayo inaad soo fadhiisato intaana shilin sidii loo heli lahaad ku maqan tahay waxa kaloo dhanna aada gacan bidixayso markaa waxaad soo baxaysaa cabdu dirhami wa dinaarku uu nebigu sheegayay inaad dirhamka iyo dinaarka addoon aada u noqoto taajirka muslimka ahi ilaahay cibaadadiisa iyo diintiisa kama mashquuliso tijaaradu saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka kuwa ammaanayana wuxuu yihi rijaalun laa tulhihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الصalaati waitaaءi الzakaat yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar masaajidda kuwii camiraya waxaa lagu tilmaamay inay rag yihiin aanay ka mashquulinin ganacsiga iyo waxiibsigu ilaahay xuskiisa iyo salaada oogisteeda iyo zakada bixinteeda aanay ka mashquulinin munaafiqiintiina maxaa ilaahay ku tilmaamay shaqalatnaa amwaaluna waahluna bay idhahdeen kuwii munaafiqa iyagu waxay idhaahdeen shaqalatnaa amwaaluna waahluna xooli iyo carruurtii baana mashquuliyay oo miyan waxbaba haleelaa buu leeyay ootay xoolaa ma addoon baad u tahay xoolaa adigaa lehe
waxay ahayd inaad adigu wax ka haleesho. saa daraaddeed ilaahay qur-aanka isagoo qolo dhaleecaynayo wuxuu ku tilmaamay waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin. maalinta jimcaha aadaanka dambe hadduu dhaco waa xaaraani wax la iibiyaa, ma banaana. aadaanka dambe jimco hadduu yeedho in wax la iibiyaa waa xaaraan. haddii markaa ay kaaba mashquuliso salaadii iyo khudbadii iyo wixii oo dhan tijaara kaa mashquuliso ka waran. waa kuwa ilaahay uu ku tilmaamayo tijaariya lahu hada infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara. si awgeed ayuha alaxiba waxay leenahay qofka taajirka ee muslimka ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa barashadeedu shilinku inuu ka mashquuliyo maha iyana. waan soo koobaya marka intaa waxaan ku darayaa taajirka muslimka ahi tijaaradu waa inay noqotaa waxaad ilaahay ugu dhowaanayso. hadday dariiqii saxaa marto ilaahay bay kuu dhoweyneysaa. waa goorma? waa goorta aada ku dhaqanto albiri waاsidqi waاtaqwa. waa goorta aada ilaahay kaga cabsato. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima. labada wax kala gadanaya khiyaarulmajliskay leeyihin intaanay kala tegin. yacni waxbaa hadda kala gadateen weli maydan kala dhaqaaqin, waa kala noqon kartaa. khiyaarkii weli wuu jiraa. haddaba wuxuu nabigu yihi fain sadaqa wabayana, hadday run sheegaan oo caddeeyaan. run sheegu waa maxay? casrigan dambe waxaa soo baxay miisaanka iyo mikyaalka iyo wax oo dhan baa la isku khiyaameeya, oo kishku meel walba wuu galay. waxaad arkaysaa daawo 10 miligram loogu talagalo maadadaasi inay ku jirto 2 miligram lagu soo shubay. waa kish. runka sheegi maysid. wixii iyo magacaan magaciisa ah inaad ku qortay intaad indiya kusoo walwalaqdabaad odhanaysa waa kii ugu dambeeyey ee maxay jabaan lagu sameeyo. waa kish kale. wuxuu yahay waxaan ahayn waa dadka ugu maalgelinayso aad kaga sheegto. miisaankiisoo aada dhinto. birahan meesha ku dhisan ee iminka sabada inoogu dhisan qiimay lahaayeen. ironka ku jira maalan tujaarta intay tagaan bay dhaa ironka adeer ka yara khafiif iyo waxa kale ku badi qiimahan dhibaya hadhow suuqa isku erigan ka qeyb gelayahay. markaasu wuxuu leeyahy birta tani waa tii 2 inch ahayd. de waa 2 inch oo beena ma aha. 2 inch oo irana ma aha. waa 2 inch oo aada soo walwalaaqday. ironka ku jira waxaa laga yaabaa wixii berigii hore lagu dari jiray 50% inaad ka soo dhintay, laakiin caamadu ma oga. saasaad kaga iibinaysa. waxaad leedahay waa tii milimeterkeedu waa tanna waa 5, kanna waa 10, kanna waa 20 baad kaga iibinaysa. waa been kale. miisaankaa la qaldaa. gadbadaad kusoo qoraysaa 50 kiilo laakiin 49 baad odhanaysaa kushubkii ku gurayay. dushana 50 baa kaga wada qoran. 49 ood kusoo guraysa. dee dadku intuu jawaanka qaado inta badan miisaankaa saari maayo, odhan maayo war 50kii ma tahay ama 25kii ma tahay. laakiin si aad qiimaha u yaro dhinto suuqa isku eriga uga qeyb gasho ayaad waxaad leedahay kiilo adeer ka reeb 49 ku gur. dabeetana 49 baad keenaysaa. maradaad odhanaysaa cotton weeyaan, cod baad kaga iiminaysaa, waana polister. magacun baad xagga sare kaga soo qortaye maadada ka samaysantahay cudbiba maaha. cotton maaha, waa polister baad kasoo saarta. yacni qaabka wax loo khiyaamaya waa tiro badan yihin. dee tujaartuna way maqlaysaa, aad bay ufahmaysaa waan filayaa. waa suuqiinii. walidalik nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam haddaad run ka sheegtaan adeer aniga gadbadaydu waa 49 kiilo baan kaaga iibinaya.
baashatan talyaanigan kusoo sameeye waa runtay, waa dhab. miligramkaa ku qorani waa sax, waxaa ku qoran bay ka samaysan tahay. haddaad sidqigaa la timaado, runtaa sheegtid oo caddaysid hadday ceeb kala leedahay, wuxuu ku yidhi war baashani waa jabaan iga iibi. markaasaa tiri isma garan maayo de u raaci, waa jabaan, ha jabaan weeyaana qaado. waxaydina tiri adeer maaha tani jabaankii waa taiwankii tani. khalaas, hadduu kaaga iibsanayo taiwannimada ha ku iibsado. nebigu wuxuu leeyahay haddaad run sheegtaan oo caddaysaan, buurika lahuma fii baycihima, waa loo barakeeyaa beycooda. xooluhuna barakaday ku badhaadhaane badnida kuma bataan. badnidu qiimo ma leh. badnidu hadduu bato oo ribo noqdo, yamxaqu llahu riba baa taala, waa barako beelaya. wain katamaa buu nebigu yihi, hadday qariyaan, wakadabaa been sheegaan, muxiqat barakatu beycihima, beycoodu wuu barako beela. idan waxaynu leenahay taajir muslima noqo oo waxaad iibinayso ka run sheeg, wuxuu yahay dadka u sheeg. been ha ka sheegi. ma diidanin waxyaaba yaroo unique u ah oo aada haysato, meeshaad ka keentay qarso, waxaan qarso, taas adaa ku shaqo leh. laakiin waxa shayga qiimaha u samaynaya un been ha ka sheegi. waxa uu qiimaha u samay valuega samaynaya been ha ka sheegi. intaa waxaa dheer inaad dee qof muslim oo dunidii qishki iyo wixii way bateen, laakiin haddana qofka muslimka ahi waa inuu qof jajaban noqdaa. oo jajabnidu maxay keensanaysaa? kii daynka la yara raaga, haddii aanu waxba haysanin muddo si, hadduu mucsir yahay ka dhaaf. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin dadka markuu daynka bixiyo inankiisa shaqaalaa ku yidhaahda, war haddaanay waxba haysan iska dhaaf, innagana in ilaahay inaga dhaafaa baa la arkay. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay buu la kulmay, dabeetana isna ilaahay baa dembigiisi u dhaafay. waa kii nabigu tilmaamayay, ilaahay ha u naxariisto qof markuu wax iibiyo samaaxa ku jirto beyciisa, aan dadka ku dhibin. hadduu wax iibsanayana, haddaad wax iibinayso dadka ha ku qaali garaynin, u naxariiso. haddaad wax iibsanaysana dee dadka ha baksino, nafta ha isugu keeni. haddaad dayn cid ku leedahayna si fiican uga dalab, haddii adiga lagugu leeyahayna si fiican isaga bixi. waxaynu u baahannahay inaynu wax badan marka xalaal miiradkii dib ugu noqono. taajirka maanta jooga siduu xalaal miirad u noqon lahaa waa ma fududa, waase noqon karaa. maanta dunida systemkeeda oo dhami ribu ku salaysan yihi. ribana nebigu wuxuu ku tilmaamay ka cuna iyo ka cunsiiya iyo ka markhaatiga ah iyo ka qoraya, waxeedoo dhami waa malcuun buu nebigu u sheegaya. wax oo dhami systemka dhan ee lagu baac mushtareynaya dunida ee dhaqaalana iyadu ku salaysan yihi. intaad ka fakan kartaa, haddaad feejig tahay un baad minimise garayn kartaa, calal aqal yarayn kartaa, aada wax ka fakan kartaa. ayuha alaxiba, guud ahaan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu yimi suuqii ay wax ku kala iibsanayeen ayuu yihi yaa macshara tujaar, war raggiina wax kala gadanayo buu nebigu yihi. waa la soo eegay markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu yihi ina tujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaara. tujaarta qiyaamaha waxaa la soo taagaya badanoo ka midi iyagoo faajiriina, faasiqiin, dembiilayaal iyagoo ah, ilaa man itaqa allaha wabara wasadaq buu nebigu yihi. mid ilaahay ka baqay oo samafalay oo run sheegay mooyaane. tujaarta inta badani fujaar bay aakhiro kusoo baxayaan buu nebigu leeyay. waxaa laga yaabaa
inaad is leedahay xoolo xalaalaad shaqaysanaysaa haddana ay xalaal noqon kari waayaan waa mid dhib badan. waxau nabigu inoo tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam gaflada ay maalka iyo tijaaradu keento inaynu ka baxno. wuxuu nabigu inoo sheegayaa meelaha suuqa laqwiga iyo dhaarta ku badan, laqwiga iyo dhaarta ee waxaa ku qastaan buu nebigu yihi bal sadaqada badiya, waxbixinta badiya si ay maxay laqwiga tirada badan le iyo dhaartan tirada badan le iyo waxaan idinka yarayso. bale waxaad ka garan kartaa dee dhulka ilaahay ugu jecel yahay nebigu wuxuu ku tilmaamay waa masaajida. dhulka ugu sharka badan lana abgad lbilaadi ila llahina waa aswaaqda buu nebigu yihi, meelaha wax lagu kala gato, meelaha wax lagu kala gato. sida awgeed meeshaasi maadaama dembigu ku badan yahay, haddaad markaad gelayso xasuusato ilaahay oo aan gafladu kugu dhicin. nebigu wuxuu leeya alayh الsalaatu wasalaam qofka marka uu masaajidka marka uu suuqa gelaya yidhaahda laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayu laa yamuut biyadihi اlkhayru kuluh wahuwa calى kuli shayin qadiir. ninka intaa yidhaahda marka uu suuqa gelayo ilaahay kaa wuxuu u qoraa buu nebigu yihi alfa xasana, waxaana laga masaxaa alfa sayi-a, gurina jannada looga dhisaa. waxay culamadu ku sababeeyaan, waxay idhahdaan meeshan baa ah mawطin اlgafla, waa meeluu qofku markuu soo gelayo maxaad macaashtaayo maxaad dilaashaayo maxaa uu ka fekeray inta badane aanu ka fekerin wardiga iyo aakhira iyo alla aanu ka fekerin. saas daraaddeed ba waxaa la yidhaha haddaad wardiga akhrisato markaad suuqa gelayso waxaad leedahay alf waa kun. luqada carabeede hore wax milyan la yidhahda ma jiro, kun baa u badnaan jiray tirada carabta. marka lasoo tiriyo kun ay gaadho wixii ka dambeeya kunka un baa la isku celcelin jiray. kun in la yidhaahdo iyo kun alf in la yidhaahdo. 3 alif haddii la sheego waa 1 bilyan, 2 alif haddii la sheego waa 1 milyan. waa sanaynu hadda u tirino ee tirada dambe dunida. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya waa alf waa 1 milyan oo xasanaad helaysa, 1 milyan oo sayi-ana waa lagaa masaxaya, gurina jannada lagaga dhisaya. laakiin ma haleelaa, su-aashu waa taa, ma haleelaa markaynu suuqa gelayno inaynu intaan idhaahno. waxaynu u baahanay marka si awgeed baa salmaan alfarisi ee xadiidka mawquufka ku ah imaamu muslim warinaya wuxuu tilmaamaya war suuqa markaad gelayso haddaad awoodo ka ugu horeeye gala ha noqonin, ka ugu dambeeye ka soo baxana ha noqonin, fa inaha macrakatu shayطaan wa biha yansibu raayatah. meeshu waa goob dagaalka shayطaan iyo halkuu calanka ka taagtay weeyaan. waxay culamadu yidhaahdaan intaad u horgasho haddana ha u dambaynin, calalqal haddaad kuwa hore xataa ka mid noqoto dee kuwa kasoo horbaxa noqo. marka intaad u horeyso ha una dambaynin. waxaan filayaa waktigii salaada male waa gaadhay. waxaan kusoo koobayaa taajirku inta aanad bini aadamka la tijaaraysan ilaahay la tijaarayso, ilaahay la ganacso, oo sidii aada tijaarada ugu janno geli lahayd ee aanay lacagoo quro u noqoteen ay u noqon lahayd jannadana wixii ku gelin lahaa tijaabi. oo dadkii muslimiintii hore tujaarta ahaa dee duni dhan oo muslima maanta niman tujaar oo muslimiin unbaa tegay oo diinta u sheegay. markaan gabagabaynaya anigu waxaan u imi inaan idin tambiihiyo. xataa su-aalaha kama jawaabo, idinkana jawaabi maayo, de macallin baan ahay. macallinku ma fahamteen buu yidhaahdaa wixii la fahmi waayo ayuu maan dib ugu noqonaya. waxa laaliya wixii su-aala doctor khadar iyo dukaatirada kale ee idin joogta ayaa weydiinaysaa. anigu waxaan u socday waxa weeyaan inaan idhaahdo war waxbaa idinka maqane raadiya. meelihii laga raadinaya waa joogaan, ma maqna. laakiin warkayga o dhami wuxuu ku kooban yahay war tijaaradu iyay naartayna geyne
xoolo iyo jannaynu isku heli karaynaa ayaan labadaa isku raadino xoolihiina waa helaynaa jannana waa helaynaa haddaynu marro maxay waddadii ilaah iyo rasuulkiisu inay yidhaahdeen mara marka aniga warkayga aan maanta idinla imi haddaad tiin reer wajaale oo tijaaro ka shaqaynaya waxa weeyaan war lacagtu iyo naarta hayna geyna jannada hayna geyso